وكتابك الإسراء والمعراج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم صعد إلى السماء السابعة. قال العلامة نجم الدين القيطي: ثم صعد نبيga iyo jibriil waxay koreen صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، samadii bay koreen, samadii asaabicati ee toddobaad. fastaftaxa waxaa furitaan dalbay jibriilu, jibriil baa furitaan dalbay. faqiila waxaa lagu yidhi oo malaa'igtii khasanada aheed ay ku yidhaahdeen: man haadaa, kan furitaanka dalbayaahi waa kuma? qaala wuxuu yidhi, jibriil baa wuxuu yidhi: jibriilu, haadaakani jibriilu waa jibriil. qiila waxaa la yidhi: waman macaka, yaa macaaga ah, yaa kula socdo adiga macaaga ah? qaala jibriil wuxuu yidhi: muxammadun macii, aniga macayga muxammadun, muxamed baa ahaaday. qiila waxaa lagu yidhi oo malaa'igtii khasanada aheed ay yidhaahdeen: awaqad ursila, miyaa la soo diray ilayhi ilalcuruuji, koritaankan samada uu soo koray miyaa loo soo diray? qaala markaa jibriil wuxuu yidhi: nacam, haa, waa la soo diray oo koritaanka waa loo soo diray. qiila waxaa la yidhi, malaa'igtii khasanada aheed waxay yidhaahdeen: marxaban, saadafa wuxuu haleelay, marxaban, makaan waasica ayuu haleelay, bihi isagana u waasic ah. ama saadafa wuxuu haleelay marxaban, makaan waasic ah. yuqaalu hada alqowlu, qowlka isaga waxaa loo leeyahay lafdiga marxabana waxaa loogu qowlayaa bihi nebiga sala allahu calayh waalih wasalam. labada exraaboodba way ku exraabi jireen culimmadu. wa ahlan, wasaadafa wuxuu haleelay ahlan, ahl buu haleelay, ahlan yuxibuhu, ahl jecel ayuu haleelay. xayaahu allaahu, allaha baaqi yeelo, min akhin, walaal xaalo uu yahay allaha baaqi yeelo, wa min khaliifatin, khaliifo xaalo uu yahay allaha baaqi yeelo. fa nicma alakhu, walaal baa nicmo lahaaday, wa nicma alkhaliifatu, khaliifo ayaa nicmo lahaaday. wa nicma almajii'u, imaatin baa wanaagsanaaday. macnaha fa nicma alakhu, walaal baa nicmo lahaaday, wa nicma alkhaliifatu, khaliifo ayaa nicmo lahaaday. almakhsuusu bilmadxi huwa, waa nebiga sala allahu calayh waalih wasalam, ee labadaba makhsuuskoodu. wa nicma almajii'u, imaatin baa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday, imaatinkoo jaa-a uu yimid. fa futixa waxaa loo furay lahumaa labadooda, nebiga sala allahu calayhi waalih wasalam iyo jibriil, waxaa loo furay albaabkii samada saabicada ayaa loo furay. falamaa khalasa, markay gudbeen, albaabka markay ka gudbeen oo samada saabicada ay dhex galeen, fa idaa waqtigaas ba annebiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam, nebigu biibraahiima, biru'yati ibraahiima, ibraahim aragtidiisii buu ku sugan yahay. waxaa si kadis ah indhihiisa uga soo horbaxay nebiyullaahi ibraahim sala allahu calayhi waalih wasalam, jaalisun, wa huwa nebi ibraahim jaalisun, mid fadhiya ayuu ahaa, cinda baabi ljannati, jannada albaabkeeda agtiisa ayuu fadhiyey. calaa kursiyin, kursi korkiisuu ku fadhiya, kursigoo min dahabin, dahab ka samaysan. mustanidun, huwa nebi ibraahim mustanidun, mid tiiriyey buu ahaa, dahrahu isaga dhabarkiisa, ila albeyti almacmuuri, gurigii la camiray oo cibaadada malaa'igta lagu camiray ayuu derbigiisa dhabarkiisu ku tiirsanaa. macahu isaga miciisa, nebiyullaahi ibraahim miciisana, nafarun koox ayaa ahaatay, nafarkoo min qowmihi isaga qoomkiisii ka mid ah. fa sallama wuu salaamay calayhi ibraahim korkiisa, annebiyu baa salaamay nebiga sala allahu calayh waali wasalam.
faradda wuu radiyey calayhi nebiga korkiisa assalaama salaamtii buu ka radiyey wa qaala wuxuuna yidhi nebi ibraahim marxaban saadafta waxaad haleeshay marxaban makaan waasica bilibnina u waasica wiilkii asaalixi wanaagsanaa waannebiyi wa binnebiyi nebigiina u waasica nebigii asaalixi wanaagsanaa ama yuqaalu hada alqowlu qowlka isaga waxaa loo leeyahay bilibni saalixi wiilkii wanaagsanaa baa loo leeyahay waannebiyi saalixi wa binnebiyi saalixi nebigii wanaagsanaa baa loo leeyahay suma qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi mur far ummataka adiga ummadaada faltughir nebiyullaahi muxamedow sala allahu calayh waali wasalam ummadaada waxaad fartaa faltughir ha badiso min khiraasi ljannati jannada tallaalkeeda ha badiso jannada tallaalkeeda ha badiso fa inna turaabahaa turaaba aljanna jannada ciiddeedu dayibatun tu wanaagsan weeye waa dhul wanaagsan oo qarsiga aada ugu habboon oo tallaalka aada ugu habboon wa ardahaa wa inna ardahaa jannada dhulkeedu waasicatun tu ballaaran weeye riwaayaadka qaarkood sidii ku sugneed waxay ahayd inuu yidhi dhulkeedu waa dhul banbannaan ciiddeeduna way wanaagsan tahay biyaheeduna way macaan yihiin waa saddex arrimood oo markaas abuurka iyo tallaalka aada u anfacda dhulku inuu bannaan yahay ciiddu ciid wanaagsan oo abuurka iyo tallaalka ku habboon inay tahay biyuhu biyo macaan inay yihiin iyakaa ku wanaagsan ayaa la yidhaahdaa markaas wax ku abuurashada eh marka wa ardahaa wa inna ardahaa jannada dhulkeedu waasicatun tu ballaaran weeye faqaala markaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam jannada inay tallaashaan dhulkeedu wuu bannaan yahay waana waasic inay tallaashaan marka dhulkaasa ku dadaaleen buu yidhi ummadaada sidaa iga gaarsiiye buu yidhi faqaala nebigu markaa wuxuu yidhi wamaa khiraasu ljanna jannada tallaalkeedu muxuu yahay maxaa lagu tallaalanayaa qaala markaa wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim kelimadaa iyadaa baa lagu tallaalanayaa buu yidhi wey laa xawla xeelad ma sugnaanin ilaahay markaas macaasidiisa markaa laga wareegto walaa quwata awoodina ma sugnaanin daacada alle lagu soo jiito ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaah subxaanahu wa tacaala kaalmadiisa maahana allihii alcaliyi sarreeya allihii alcadiimi weynaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed aqri ummataka ummadaada waxaad u akhrisaa baa layidhi aqri ummataka ummadaada waxaad u akhrisaa minii xaggayga asalaama salaam iiga aqri ummadaada salaam iga gaarhsiiye wa akhbirhum waxaadna u warrantaa baa layidhi anna aljannata jannadu dayibatu turbati ciiddeedu mid ay wanaagsan tahay inay tahay ciid wanaagsan oo tallaalashada ku habboon inay jannadu leedahay cadbatulmaa'i biyaheedu tu ay macaan yihiin inay tahay wa anna khiraasaha tallaalkeeduna subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar sidaa inay tahay waxaa lagu tallaalanayaa intaa iga gaarsii buu yidhi wa anna khiraasaha kale jannada tallaalkeeduna waxaa lagu tallaalanayo geedaheedu markii lagu dhawaaqo ay soo baxayaan subxaana allaahi inay tahay usabixu waxaan hufayaa subxaana allah alle hufnaantiisa ayaan hufayaa ilaahay baan xumaan oo dhan markaas ka nasahayaa walxamdu xamdiguna lilaahi ilaah buu u sugnaaday waa kow walaa ilaaha laa macbuuda bixaqin ilaa xaq lagu caabudaana ma jiro ila allaahu ilaah oo keliya maahane wallaahu ilaahi baa akbar weyn wa cindahu nebiyullaahi ibraahim agtiisa qowmun qolo ayaa ahaayeen qoomka juluusun fafadhiyeen qoomka biidulwujuuhi wejiyaalkoodu ay cadcad yihiin qoomka amhaalulqaraatiisi warqado oo kaleeto ah warqado oo kaleeto oo caddaankoodu say u cadcad yihiin aada warqad haddeer markaas cusuboo wax ku qorid markaas u diyaarsan aada moodaysa biir wey wa cindahu nebi ibraahim agtiisa qowmun qolo ahaadeen qoomkoo juluusun fafadhiya qoomkoo biidulwujuuhi wejiyaalkooda ay cadcad yihiin qoomkaasoo amhaalulqaraatiisi warqado oo kaleeto ah oo caddaankoodu caddaanka warqadda uu la mid yahay wa qowmun iyo qolo qoomkoon fii alwaanihim midabadooda shay-un wax ay ku sugan yihiin qolo midabadoodu aysan saafi ahayne wax uun wasaqihi midabadooda ay ku dhex jiraanna way ag fadhiyaan bir wey
waqowmun iyo qolo biri qoomkan fii alwaanihim midabadooda shay-un uu ku sugan yahay faqaama waxaa istaageen waa kow faqaama waxaa istaageen baa layidhi haa-ulaa'i kuwaas aladiina kuwaasoo fii alwaanihim midabadooda dhexdoodii shay-un wax ay ku sugnaayeen baa istaageen fadakhaluu waxay galeen nahran webi ayay galeen faاqtasaluu way qubaysteen fiihi nahriga dhexdiisii bay ku qubaysteen fakharajuu way soo baxeen waqad khalasa walxaal qad khalasa waa kow uu saafi noqday min alwaanihim midabadoodii shay-un shay uu ka saafi noqday ayadoo midabadoodii shay uu ka soo saafi noqday oo midab caddaanihii keliyihii uu ka soo saafi noqday oo midabkii kuwii kale ay lahaayeen keliyuhu uu ka soo saafi noqdo midabkaa oo keliyuhu uu ka soo baxay waqad khalasa walxaal qad khalasa fakharajuu way soo baxeen walxaal qad khalasa uu saafi noqday min alwaanihim midabadooda xaggoodii shay-un shay uu ka saafi noqday oo shayga ka saafi noqday waxa weeye midab saafiya ayaa ka soo baxay oo caddaankii sida kuwii kale caddaankoodii ayaa ka soo saafi noqday uma dakhaluu waxay galeen buu yidhi nahran waa kow uma dakhaluu waxay galeen buu yidhi nahran webi ayay galeen buu yidhi webi bay galeen faاqtasaluu way qubaysteen fiihi webigii dhexdiisay ay ku qubaysteen fakharajuu way soo baxeen buu yidhi waqad khalasa walxaal qad khalasa uu markaa saafi noqday min alwaanihim midabadoodii shay-un wax uu ka saafi noqday oo wasaqdoodii qaar uu ka haray baa loo wadaa tan iyo tii horeba sidaas wasaqdii iyo wixii ku sugnaa ayaa qaarkood haray macnuhu waa sidaasaa fakharajuu way soo baxeen buu yidhi walxaal qad khalasa uu saafi noqday buu yidhi min alwaanihim midabadoodii shay-un shay uu ka saafi noqday oo wasaqdoodii markaas qaar uu haray buu yidhi wey uma dakhaluu waxay galeen nahran haalian webi saddexaad bay galeen faاqtasaluu way qubaysteen fiihi nahriga haalidkaa bay ku qubaysteen walxaal qad khalasad ay saafi noqotay alwaanuhum midabadoodii fasaarad markaas waxay noqotay midla alwaani asxaabihim saaxiibadoodii kaleto nebi ibraahim ag fadhiyeen midabadoodii oo kaleto macnuhu waxaa weeye webigii hore markay ku qubaysteen wasaqdoodii qaar baa ka hartay oo midabadoodii qayb ka mid ahaa saafi noqotay webigii labaad markay ku qubaysteenna wasaqdii qaar labaadaa haddana haray oo kamaysan wada harina haddana xoogaa kalea ka haro oo midabadoodii qaar kaleoo ka mid ahaa saafi noqday webigii saddexaad markay ku qubaysteenna midabkoodii dhammaanba wuu saafi noqday oo wasaqdii dhammaan way ka wada hartay macnuhu sidaa wey marka faاqtasaluu way qubaysteen fiihi webiga haalidka ah bay ku qubaysteen buu yidhi waqad khalasad waxaana markaas saafi noqotay buu yidhi alwaanuhu midabadoodiibaa saafi noqotay fasaarad markaasay alwaantii waxay noqotay buu yidhi midla alwaani asxaabihim saaxiibadood midabadoodii oo kaleeta ayay markaa noqotay fa jaa-uu way yimaadeen fa jalasuu way fadhiisteen ilaa asxaabihim saaxiibadood bay la fadhiisteen fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow man haa-ulaa'i kuwani waa kuwama kuwii albiidulwujuuhi wejiyaalkoodu ay cadcaddaayeen man haa-ulaa'i kuwani waa kuwama kuwii albiidulwujuuhi wejiyaalkoodu ay cadcaddaayeen waman haa-ulaa'i kuwaanise waa kuwama aladiina kuwaasoo fii alwaanihim midabadooda shay-un wax ay ku sugnaayeen markii hore ay wax ku sugnaayeen wamaa haadihi alanhaaru webiyaalkaanuse maxay yihiin allatii anhaartaasoo dakhaluuhaa anhaarta ay galeenoo faاqtasaluu ay qubaysteen fiihaa anhaartii dhexdeedii faqaala markaa jibriil wuxuu yidhi amaa haa-ulaa'i albiidu lwujuuhi kuwaan iyakaahu wejiyaalkoodu ay cadcad yihiin amaa haa-ulaa'i albiidu lwujuuhi kuwaan iyakaahu wejiyaalkoodu ay cadcad yihiin fa qowmun qolo weeye qoomkoo lam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankoodii bidulmin dulmi aan ku dheehin buu yidhi wey macaasi aan ku dheehin waa qolo iimaankoodii aan wax cisyaana ku dheehin say u macnaa mu'miniin u ahaayeen iimaankoodu uu saafi ahaa oo markaa wax cisyaana aan la imaanin fa qowmun qolo weeye qoomkoo lam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankoodii bidulmin macaasi aan ku dheehin wa amaa haa-ulaa'i kuwani aladiina kuwaasoo fii alwaanihim madabadooda shay-un wax ay ku sugnaayeen fa qowmun waa qolo qoomkoo khaladuu dheeheen camalan camalkoo saalixan wanaagsan
iyo wa aakhara camal kaleeto aakharkoo sayi-an xun bay isku dheheen birwey camal wanaagsan iyo camal xun ayay isku dareen dad mu'miniinahoo acmaal wanaagsanna la yimaadeen macaasina la yimaadeen bay ahaayeen fataabuu way noqdeen oo webiyaalka ay ku qubaysanayeen waxay ahayd toobadkeennid ilaahay bay u noqdeen fataaba allaahu calayhim ilaahay baa noqoshadoodii aqbalay oo towbadoodii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u aqbalay bilu fataabuu way noqdeen oo webiga ay ku qubaysanayeen toobadkeenid buu ahaa macnuhu fataaba allaahu calayhim ilaahay baa towbadoodii aqbalay wa amaa haadihi alanhaaru webiyaalkan iyaka ahi fa awaluhaa midka ugu horreeya raxmatullaahi baa la yidhaahdaa subxaanahu wa tacaala ilaah naxariistiisii baa la yidhaahdaayoo waxaa lagu magacaabaa magaciisaba raxmatullaahi baa la yidhahda waa ilaahay naxariistiisii subxaanahu wa tacaala tusaalaha webigale waxaa laga soo qaaday baa naxariistii ilaahay ah wathaani webiga labaadna nicmatullaahi baa la yidhaha magaciisa isagaba si tasmiyadaasuu leeyaho nicmatullaahi baa la yidhaahdaa wathaalidu midka saddexaadna saqaahum rabbuhum sharaaban tahuuran isimka calamkaahu leeyay jumladaasoo dhan ayaa waxay u tahay isim calama u aho magacaas ayaa la yidhahdaa baa la yidhi wey saqaahum wuxuu waraabiye rabbuhum rabbigood sharaaban cabbitaan buu ka waraabiye cabbitaankoo tahuuran wax dahira cabbitaan wax dahira ayaa rabbigood subxaanahu wa tacaala uu ka waraabiyey marka jumladaasoo dhan ayaa magaciisii oo isimka calam u ah baa layidhi wa qiila waxaa la yidhi haadaa kani makaanuka adiga meeshaadii weeye wa makaanu ummatika ummaddaada meeshoodii weeye adiga ummaddaada halkanaa idiin deegaan ah baa nebiga lagu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam wa qiila waxaa lagu yidhi haadaa makaankani waa jannada meeshii markaa laga joogay makaanuka adiga booskaagii weeye wa makaanu ummatika ummaddaada makaankoodii weeye waidaa waqtigaasba huwa nebigu biummatihi biru'yati ummatihi ummaddiisa aragtideedii buu ku sugan yahay ummaddaasoo shadrayni laba bar ah buu yidhi wey waidaa waqtigaasba huwa nebigu biru'yati ummatihi ummaddiisa aragtideedii buu ku sugan yahay ummaddaasoo shadrayni laba bar ah buu yidhi wey laba qaybood ah oo laba qaybood u kala qaybsan shadrun bar calayhim iyaka korkooda hiyaabun marya ahaaday hiyaabtaasoo ka annahaa sidii iyada alqaraadiisu warqada ah buu yidhi wey maryo aad u cadcad oo wax wasaqa inaba hala arkay hala ekaatee aan lagu arag ayaa qaarkood sitaan shadrun bar buu yidhi calayhim iyo korkooda hiyaabun maryo ahaaday hiyaabtaasoo ka annahaa sidii iyadoo alqaraadiisu warqada ah buu yidhi wa shadrun barna calayhim iyaka korkooda hiyaabun maryo ahaada maryahaasoo rumdun dambasaysan oo midabka dambaska oo kale leh kuwa dambasaysan ah buu yidhi wey rumdiga macnaha waxaa la yidhaha jamcu armada baa la yidhaha wahuwa aladii calaa lowni ramaadi waa midabka dambaska oo kaleeto waxaa leh baa la yidhaha marada leh baa la yidhaahdaa marka wa shadrun barna calayhim iyo korkooda hiyaabun maryo ahaada maryahaasoo rumdun kuwa dambasaysan ah buu yidhi wey fa dakhala wuxuu galay baa la yidhi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh waaalih wasalam albeyt almacmuura gurigii la camiray oo cibaadada malaa'igta lagu camiray ayuu galay baa la yidhi gurigii cibaadada malaa'igta lagu camiray ayuu galay baa albeyt almacmuura gurigii la camiray bidikri illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay dikrigiisiiyo wa kahrati lmalaa'ikati lagu camiray baa la yidhi wa dakhala waxaa galay macahu nebiga maciisana aladiina kuwii calayhim iyaka korkooda ahiyaabu maryihii ay ku sugnaayeen maryihii albiidu cadcaddaayeen kuwii maryaha cadcad sitay baa ka dabagaleen beytulmacmuur wa dakhala waxaa galeen macahu nebiga maciisa aladiina kuwii calayhim iyo korkooda ahiyaabu maryuhu ay ku sugnaayeen maryihii albiidu cadcaddaayeen wa xujiba waxaa la xijaabay alaakharuuna kuwii kaleeto aladiina kuwaasoo calayhim iyo korkooda ahiyaabu maryuhu ay ku sugnaayeen maryihii arrumdu ee kuwa dambasaysan ahaayeen baa la yidhi kuwaas ayaa la celiyey oo albaabka ayaa lagu celiyo beytulmacmuur wax kama aysan gelin wa xujiba waxaa la xijaaba alaakharuuna kuwii kaleeto aladiina kuwaasoo calayhim iyo korkooda ahiyaabu maryuhu ay ku sugnaayeen maryihii arrumdu ee dambasaysnaayeen kuwa dambasaysan ahaayeen walxaal hum ayakuna calaa khayrin khayr korkiisa ay ku sugan yihiin ayaa la xijaabay ayakuna dad khayr le nafsadoodu ah ayaa la xijaabay bir wey wahum walxaal hum ayakuna calaa khayrin khayr korkii ay ku sugan yihiin baa la xijaabay bir wey waa kow macnaha warkaas wahum calaa khayrin waxaa la yidhi hada dafcun lima yutawahamu anahum laysuu calaa khayrin lixajbihim
mar haddii la xijaabay dad khayr la inaysan ahayn ay macnaha tawahumkii noocaas ahaa ka hortegid iyo difaacid laga hortegaya ayaa waxaa loo yidhi wahum calaa khayrin buu nebigu u yidhi sala allahu caleyh waali wasalam fa sallaa wuu tukaday nebigu sala allahu caleyh waali wasalam beytulmacmuur buu ku tukaday waman macahu dadkii asaga miciisa ahaayoo min almu'miniina mu'miniinta ahaana way tukadeen fi lbeyti almacmuuri gurigaa la yidhaahdo beytulmacmuur bay ku tukadeen waidaa waqtigaasba huwa beytulmacmuur yadkhuluhu waxaa gelaya kulla yowmin maalin la arko 70,000 malakin 70,000 oo malag baa soo gelayaan baa layidhi waidaa waqtigaasba huwa beytkaa la yidhaha beytulmacmuur ay kusoo tukadeen yadkhuluhu beytkaa waxaa gelaya kulla yowmin maalin la arka 70,000 malakin 70,000 oo malag laa yacuuduuna malaa'igtaasi man soo noqonayaan ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha maalinkiisa inta laga gaarayo ma soo noqonayaan kuwii marku tukadaahay ku soo noqon mayaan wa innahu beytulmacmuurna bixidaa'i lkacbati kacbada qaabilkeeda ayuu ku sugan yahay kacbada korkeeduu aada ugu beegan yaho ugu toosan yahay wa innahu beytulmacmuur bixidaa'i lkacba kacbada qaabilkeeda ayuu ku sugan yahay low khara hadduu dhici lahaa minhu beytulmacmuur xaggiisa xajarun dhagax hadduu ka soo dhici lahaa la khara wuxuu dhici lahaa calayhaa kacbada korkeeda ayuu ku dhici lahay oo kacbaduu ku soo hooban lahay oo meel kale muusan aadin siday ugu toosan tahay aakhiru maa calayhim haadaa dukhuulkaa isagaahi iyo tukashadaasi aakhiru maa calayhim iyaka wixii korkooda ahaa midkii ugu dembeeyey weeye gelitaankaas ay soo galeen 70,000 tukashada ay ku tukadeen iyo bixitaankaas ay ka baxeen wixii korkooda ahaa wixii ugu dambeeyey weeye waxaa looga jeedaa macnaha ictibaarka beytulqudsi beytulmacmuur aan ku idhaahdo wixii macnaha wixii ku saabsanaa oo ayaka ku tacalluqay hal mara inay inta soo galaan oo ku tukadaan ay ka baxeen unbay ahayd ama cibaadaad kaleeto oo markaas ay ku cibaadaysanayaanoo tasbiix iyo taxmiid iyo cibaadaad kaleeto way jiraan laakiin si waxaa loo wadaa wax beytulmacmuur ku saabsan waa un hal mara ayaa mid la arko malaa'igta ka miduu soo gelayaa kana baxaya intuu ku tukado marka aakhiru maa calayhim haadaa dukhuulka isagaa hiyo aakhiru maa calayhim iyaka korkooda wixii ahaa wixii ugu dambeeyey wey ee ina dukhuulahum ayaka gelitaankoodii albeyt almacmuura ay soo galeen iyo wacadamu cawdihim soo noqoshadooda la waayideedii lahu isaga ay ku soo noqdaan bacda khuruujihim bixidooda ka gadaal minhu isaga ay ka baxaan aakhiru maa calayhim wixii korkooda ahaa wixii ugu dambeeyey weeye binisbati lilbeyt almacmuuri beytka beytulmacmuur la yidhahdaa nisbadiisa waa wixii ugu dambeeyey wax kaloo cibaado ahoo beytulmacmuur ku saabsan laguma waajibin oo laguma lahaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed riwaaya kaleeta waxaa ku sugneed waa xadiidka qisatu lisraa waalmicraaj xadiidkaa ku soo arooray riwaayo kaleoo riwaayaadkiisa ka mida waxaa ku sugnaa innahu xaalo iyo sha'niye curidad waxaa la bandhigay calayhi nebiga korkiisa alaaniyatu weelashii baa loo bandhigay weelashii ahalaaatu saddexda ahaayeen weelashii almutaqadimatu hormareen fa akhada markaasuu wuxuu qaatay oo riwaayadii hore noogu soo hormareen fa akhada wuxuu qaatay weelashaas wixii ku jiray wuxuu ka qaataa allabana caanihii ayuu qaatay weelkii caanuhu ku jireen uu qaatay wixii ku jirayna uu cabbay fa sawaba waxaa sawaabiyey waxaa inuu sidii sawaabka aheed uu maray u sheegay jibriil sawaba jibriil wuxuu sawaabiyey ficlahu nebiga ficilkiisii kamaa taqadama sidii hormartay wa qaala wuxuuna yidhi kamaa fii riwaayatin riwaayo sidii ku sugneed wuxuu yidhi oo kayfiyadu u sawaabiya sidaan ayay ahayd haadihi alfidra haadihi qaadashadan iyadaahoo caanaha aada qaadatay alfidratu calaamatu alfidrati islaamnimada calaamadeedii weeye bidhi qaadashadan aad caanaha qaadatay waa calaamadii markaas islaamka tusaalaynaysay bidhi allatii fidradaasoo anta adiguba calayhaa ayada korkeeda aad ku sugan tahay wa ummatuka ummaddaaduna ay ku sugan yihiin fa sawaba wuxuu sawaabiyey jibriil ficlahu nebiga ficilkiisii kamaa taqadama sidii hormarto riwaayadii hore noogu soo hormartay wa qaala jibriil wuxuuna yidhi kamaa fii riwaayatin riwaayo dhexdeeda sidii ku sugnayd haadihi tani alfidratu calaamatu lfidrati islaamnimada ama diinta calaamadeedii weeye buu yidhi waa calaamadii waa kow calaamatu lfidrati weeye allatii fidradaasoo anta adiguba calayhaa fidrada korkeeda aad ku sugan tahay
ودين الإسلام كعلامة دي التي فطرة سوان تدوب عليها يدا كركدا كسوغنتا وأمتكم مدادنا يكسوغنيهم ثم رفع وحا الله كريالي إلى سدرة المنتهى يولوغ قبتي سي حق يدا الله كريالي جيدكي قبتاها مركاس لغو يولو بيي حقي سا نبيك صلى الله عليه وسلم الله كريالي بدو ثم رفع وحا الله كريالي نبيك إلى سدرة المنتهى يولوغ قبتي سي حق يدا الله كريالي وإليها سدرة حق يدا ينتهي وحا كو يولو بيي ما يعرجو وحا كره من الأرض دولك حقي سوحا ككراهي إيضا أيي كو يولو بيان فيقبض والله قبانيا منها سدرة حق يدا لغا قبانيا samada xaggeeda dhulka xaggiisa wixii ka kora markii sidratul muntaha ay tagaan ayaa la qabanayaa ma dhaafayaan oo malaa'ig meeshaas joogta ayaa qabanayaan fayuqbadu waa la qabanayaa waa la qabdoonaya macna waa la qabanayaa minha sidratul muntaha xaggeeda laga qabanayaa wa ilayha sidrada xaggeedu ilayha iyada sidradaasu yantahi kusoo yooloobaya ma yahbidu waxa soo hoobta min fawqin حق سرا وحا كسو هوبتا بيروي حق سرا وحا كسو هوبتانا ايدا ايي كو يولابيان فيقبض والله قبضونيا والله قبنيا منها سدرده حقيدا لغا قبنيا واذا وقتغاس هي سدرة المنتهى جيد ليرا شجرة وجيد شجرة يخرج صبح يوم من اصلها جريدوده هوسه انهار وبيال اي كسو بخيان واذا وقتغاس هي geedaa la yiraahdo sidratul muntaha shajaratun geed weeye shajarado yakhruju ay soo baxayaan min asliha jirideeda hoose anhaarun wabiyaal ay ka soo baxayaan waa kow anhaartaasoo min maa'in biyo ah baa la yidhi maa aasoo hayri aasinin mid doorsoomay aan ahayn mid doorsoomay kayrkiisa يخرج وحا كسو بحي من أصلها جريد هوسي أنهار وبيال با كسو بحي وبيال كسو من ماء بياء وإن ما أصو غير آسن مد دور صومي غير كيسا بيروي وان دور سمين معنوه وأنهار با كسو بحي وبيال كسو من لبن عانأه لبن كسو لم يتغير وسن دور سومين طعمه ردن كيسي وسن دور سومين وأنهار وبيال لو كسو بحي أنهار تاسو من خمرأة خمرadaasoo ladatin mid u macaan ah baa la yidhi lishaaribiina kuwa cabaya mid u macaanaho ay ku macaansanayaan ah baa la yidhi wa anhaarun baa ka soo baxayaan anhaartaasoo min khamrin khamra ah khamradaasoo ladatin tu macaan ah baa la yidhi lishaaribiina kuwa cabayana u macaan wa anhaarun baa markaas ka soo baxaya baa la yidhi anhaartaasoo min casalin malab ah baa la yidhi malabkaasoo musafan la saafi yeelay yasiiru wuxuu soconayaa baa la yidhi alraakibu midka gaadiidka fuushani weliba gaadiidka dheereeya sidii bacdu riwaayaad oo saxiixa ku soo aroortay yasiiru wuxuu soconayaa alraakibu midka gaadiidka fuushani fii dillihaa geeddaa sidratulmuntaha la yidhaahdo hooskeeda dhexdiisa wuxuu ku soconayaa 70 caaman 70 dayrood baa 70 sano ayuu ku soconayaa laa yaqdacuhaa xaalo uusan goynayno uusan hooskeeda ka gudbaynin qofka gaadiidka dheereeyo wataahi hadduu dhinaca inta socod kaga bilaabo dhinaca kale tag uu is yidhaahdo 70 sano ayay ku qaadanaysaa asagoo dhinaceedii kale aan tegin waa kow laa yaqdacuhaa xaalo uusan goynayn buu markaa 70 sano ku soconayaa biiwey waidaa waqtigaasba nabaquhaa ayada miraheedu nabaquhaa ama nabquhaa miraheedu geeddaas iyadaa hesha sidratulmuntaha la yidhaha miraheedu midlu qilaali hajara magaalada hajara la yidhaahdo qulladaheedu oo kaleeta weeye caashuumada magaalada hajara la yidhaahdo caashuumada waaweyn ee laga isticmaalo oo kaleeta weeye baa la yidhi miraheedu waidaa waqtigaasba waraquhaa ayada caleemaheedu ka aadaani alfiilati waa kow كآذان الفيلة مير كآذان الفيلة مروديالك دغهودا oo kale ta weeye baa leeyahay sida ay caleenteedu u balbalaaran yihiin oo waaweyn yihiin dhaga maroodi baad moodaa wayda waqtigaas ma waraq waa calameedii كآذان الفيلة مروديالka dhagahoodii waa dhagayaalkoodii oo kale ta weeye
takaadu waxay sigaysaa baa la yidhi alwarqatu caleentu tuqadii inay daboosho haadihi lumma ummaddan iyadaahee muxamediyadaahee ummatulijaabada ah oo dhan inay daboosho ay hoos u noqoto ayay halka caleenihi sigaysaa baa la yidhi geedkaa sidratulmuntaha la yidhaahdo takaadu waxay sigaysaa alwarqatu caleentii baa la yidhi tuqadii inay daboosho haadihi lumma ummaddan iyadaa baa la yidhi wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed riwaayo kale waxaa ku sugneed alwarqatu caleentii warqadoo minhaa sidratulmuntaha xaggeeda ka ahaatay tudillu waxay hoosinaysaa alkhalaa'iqa makhluuqaadkiibay hoosinaysaa wixii la abuuray bay hoosinaysaa baa la yidhi waa kow calaa kulli warqatin caleen la arka korkeedii caleentoo fiihaa sidratulmuntahaa dhexdeeda ku sugan malakun malag baa ahaaday baa layidhi calaa kulli warqatin caleen la arka korkeeda caleentoo fiihaa sidratulmuntahaa dhexdeeda ku sugan malakun malag baa ahaaday faqashiyahaa waxaa daboolay haddii caleen walba malag uun nooc gooniya ilaahay uu sameeyey uu dul saaran yahay faqashiyahaa waxaa daboolay alwaanun midabo qashiyahaa sidratulmuntahaa waxaa daboolay alwaanun midabbaad dabooleen alwaantoo laa yudraa aan la garanayn maahiya waxa ay tahay midabo cadadkeedu iyo siday u kala duwan tahay iyo noocyada ay tahay ilaahay keliyuhu uu garanayo ayaa ku degeenoo dabooleen oo malaa'igtaasa faqashiyahaa waxaa daboolay alwaanu midabo bir alwaantoo laa yudraa aan la garanayn maahiya waxay tahay falamaa qashiyahaa sidratulmuntaha markuu daboolay min amri illaahi alla arrinkiisa xaggiisa xaalo uu ka ahaaday maa qashiyahaa wixii daboolay taqayarad way doorsoontay midabkeedii geednimaadka oo dhani wuu doorsoomay bidhi wey malaa'igtaasu markay ku degeen falamaa qashiyahaa sidratulmuntaha markay dabooleen min amri illaahi subxaanahu wa tacaala alla arrinkiisa xaggiisa xaalo uu ka ahaaday maa qashiyahaa wixii daboolay taqayarad way doorsoontay wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed riwaayo kale waxaa ku sugneed taxawalad way wareegtay riwaayo macnaha taqayarad beddelkeedii riwaayo kale waxaa ku sugneed taxawalad way wareegto macnaa taqayarad weeye way doorsoontay yaaquutan jawharta yaaquud la yidhaahdo iyo wazabarjadan jawharta zabarjadka la yidhaahdo ayay u doorsoonto ay caleenteedii oo dhan isu beddeleen bidhi wey jawharta yaaquudka la yidhaahdo iyo jawhartaa zabarjadka la yidhaahdo ayay caleemaheediiba isu beddeleenba famaa yastadiicu ma awoodo buu yidhi axadun qofna an yancutahaa inuu tilmaamo min xusnihaa min ajli xusnihaa quruxdeeda darteed qofna inuu tilmaan ka bixiyo ma awoodo buu yidhi nebigu sala allahu caleyh waali wasalam famaa yastadiicu ma awoodo axadun qofna an yancutahaa geeddaa sidratulmuntaha la yidhaahdo inuu tilmaamo min xusnihaa min ajli xusnihaa quruxdeeda darteed fiihaa sidratulmuntaha buu ku sugan yahay faraashun haade faraashkoo min dahabin dahab ka samaysan bir wey baalkaa la yidhaahdo ayaxa asalka waxaa la yidhaahdaa faraashka hadda waxaa loo wadaa waa jaraadun horta waa ayax wa aslulfaraashi baalka faraashka la yidhaahdo asalkiisina huwa maa yulqii nafsahu fi siraaji min altayri wa huwa akbaru min addubaabi waxaa la yidhahdaa baalkaas xilliga roobabowda ah layrarka iyo dababka iyo ku daata haadahaadaha ay dhihi jireen culimmadu kaas ayaa la yidhaahdaa laakiin hadda jaraadkii baa loo wadaa baa la yidhi bimacna aljaraad baa loo wadaa ayaxii ah marka fiihaa waxaa ku sugnaa sidratulmuntaha dhexdeeda waxaa ku sugnaa faraashun ayax baa ku sugnaa faraashkaasoo min dahabin dahab ka samaysan waidaa waqtigaasba fii aslihaa geeddaa la yidhaha sidratulmuntaha jiriddeeda 4 anhaarin webiyaal 4 ha ahaadeenoo 4 webi ayaa markaas ka burqanayaan ayaka jiriddeeda ka burqanayaan nahraani 2 webi baatinaani 2 hoose weeyoo xagga hoose ayay u baxayaan wa nahraani 2 webina daahiraani 2 sare weeyoo xagga sare ayay u baxayaan faqaala nebigu markaa wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam maa haadihi alanhaaru webiyaalkan sidratulmuntaha jiriddeeda ka burqanayaa maxay yihiin yaa jibriilow qaala jibriil markaa wuxuu yidhi ama albaadinaani 2 hoose fa nahraani 2 webi weeye nahraankaasoo filjannati jannada dhexdeeda ku sugan wa ama aldaahiraani 2 kore fanniilu webiga niil la yidhaahdiyo walfuraatu webiga furaad la yidhaahda weeye buu yidhi waa niil iyo furaad buu yidhi 2 iyakaahu macnuhu waxa weeye waa tusaalahoodiiyo musulkoodii weeye 2daas iyaka ahi waa kow
فالنيل والفرات ويبين. وفي رواية وحكو سجناد أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى وحو أركي جبريل ملك جبريل ليرهذا أيو أركي ملك جبريل ليرهذا أيو النبي أركي صلى الله عليه وآله وسلم عند السدرة جيد كقبتا أكتس أيو كو أركي وله والحال له جبريل أيو سجنادين 600 جناح لحب قل أو قرب أيضا أيو سجنادين أيو أركي أو أبورستيسي أصل كاهد أو ملكية أو كسوغن يهي أبورس مرآن معناها أبورستيسي أصل كاهيد أهينو رجولية يا آدم بني سيدا إنسان كو كلام بني آدم كو كلاتا يسوسو سورين شرا سيدا بدن أصغو نين لأورين شرا صحابة كميد هاي ودحية ابن خليفة الكلبي لديه شرا وآد وروح بدنا أصغو أوئك أيو مركز أو إيمان شرا إلى صحابة غاركود انتا أركان سيدا آنس بن مالك يوم سلمة إيو عبد الله بن عباس يضد بدن وصحابة كسقناتي انتي أركين أي مودين نبقى أحد كلا شاكي سنة يا إنو يهيدحية ابن خليفة الكلبي مركا وحو يري فرأى وحو أركي إنه نبي رأى وحو أركي جبريل أيو أركي عند سدرتي جيد كي قبتها أكتس أيو كو أركي جيد كا سدرة المنتهى اللي يرهدو وله والحال له جبريل وسق نادين 600 جناح لحب قلو قرب أيو سق نادين كل جناح قرب لأركوه منها سدرة المنتهى حق ذكاء هذا قد سد يا كل جناح قرب لأركوه منها أجنحة أسكمد عنكو إراهدو سدرة المنتهى يعني كاقعلين ضميرك وأجنحة جبريل بالوشي ذا يعني كاهلين كل جناح قرب لأركوه منها أجنحة حق ذكاء هذا قربهاس قد سد وحو أودي الوفق جهوينك أودي بيروي جهوينك أيو أودي يتناثر وحا كضاضنيه واكو يتناثر وحا كضاضنيه من أجنحته قربه سحقودي التهاويل شدائد با كضاضنيه بيروي الأمور المهولة العظيمة با كضاضنيه أمور معناها عنص oo markaas waaweyn oo waxawl iyo shida gelisa ayaa ka daadanaysa biirway yatanaasaru waxa daadanaya min ajnihati isaga garbiisa tahaawiilu ba ka daadanayaan biirway tahaawiil shadaa'id ba ka daadanayaan ad-durru ba ka daadanayaan lulki waaweyna iyo wal yaquudki ba ka daadanayaan biirway jawharta yaquudka la yiraahdo iyo durriga waa al-lu'lu'ul kibaaru ba durriga la yiraahdaa lulki waaweyna kuwa ayaa ka daadanayaan mimma kuwii xaala ay ka mid yihiin durriga iyo yaquudku laa yaclamuhu uusan ogeyn ila allahu subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ka daadanaya oo tahaawiishaahoo lagu bayaaniyey addurru walyaquutu ay ka mid yihiin oo waxay ka mid yihiin kuwo ka daadanayo aan ilaahay maana cid kale garanayn mimma kuwii xaala ay ka mid yihiin bay ka daadanayaan durriga iyo yaquudku laa yaclamuhu uusan ogeyn ila allahu subxaanahu wa tacaala uma akhada wuxuu qaaday wuxuu maray nebigu sala allahu calayh waali wasalam cala alkawhari webiga kawharka la yidhaahdo macnaha calaa shaati'i lkawhari baa loo jeedaa webiga kawharka la yidhaahda qarkiisii ayuu maray webigaa kawhar la yidhaha qarkiisuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu maray xataa dakhala ilaa uu galay aljannata jannada ilaa uu galay buu webigaa kawhara qarkiisa uu ku socday bidhoy fa idaa waqtigaasba fiihaa jannada dhexdeeda maa shay baa ku sugan laa caynun ilih raacdaysan arkin biirwey walaa udun dhegina samicadaysan maqlin walaa khadara aana ku dhicin calaa qalbi basharin bini aadam qalbigiisna aan ku dhicin biirwey fa idaa waqtigaasba fiihaa jannada dhexdeeda nebigu hadduu galay sala allahu calayh waali wasalam maa shay baa ku sugan laa caynun ili raacdaysan arkin buu yidhi shay aan ili arkin macnaha indhaha bani aadamkaa loo jeedaa walaa khadara calaa qalbi basharin taas ugu dambaysa sida laga faa'iidaysanayo isha aan arkin jannada waxa ku sugani waa isha bani aadamka ayaa loo jeedaa sababtu waxa weeye indhaha malaa'igtu way arkeen sababtu waxaa soo aroortay oo axaadiis marka saxiixa ku soo aroortay in nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yidhi jannada ayaa la sameeyey markaasaa la yidhi ilaah wuxuu ku amray jibriil inuu galo oo soo fiiriyo waa uu galay waa uu soo fiiriyey markaasuu waxaa la yidhi ka waran markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow axad arkaahi tan axad loo sifeeyo oo loo tilmaamaahi waa uu gelayaa buu yidhi wey markaa kabacdi baa wuxuu yidhi waxaa lagu ooday nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wax allaaliya makaarihida wixii la dhihi jiro nafta ay dhibsanaysay baa lagu ooday
markaasaa la yidhi haddaba bal soo eeg markaasuu soo eega iyadoo makaarihdii lagu wareejiyey oo derbigeedu uu yahay wax allaaliya wixii nafta dhibayay markuu soo eegay buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka cabsanayaa cidiba inaysan gelin baan ka cabsanayaa buu yidhi markaasaa haddana naartii la sameeyey markaasaa la yidhi soo eeg marka wuxuu yidhi ka warran baa la yidhi markuu soo eegay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay tan cid loo sifaysaa qof loo sifeeyaahi ma gelaya buu yidhi markaasaa waxaa lagu ooday shahawaadkii dayr baa loo sameeyey dayrkaasoo ganjeelluhu xihan yahay oo ah shahawaadkii wax allaali wixii naftu jecleed ayaa ood looga dhigay markii lagu oodaa la yidhi haddaba soo eg baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi markii uu arkay iyadoo shahawaadkii lagu ooday buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka cabsanayaa cidiba inaysan ka badbaadin aantan ka cabsanayaa buu yidhi oo qof walba ay u gal buu yidhi sidaa ayuu yidhi marka malaa'igtu way arkeen oo indhaha la leeyahay ma aysan arkin iyo dhagaha la leeyahay ma aysan maqlin waa dhagaha bani aadamka un baa loo jeedaa sida fiqrada ugu dambaysa walaa khadara calaa qalbi basharin ba sidaad ka faa'iidaysanayso fa idaa waqtigaasba fiiha iyada dhexdeeda maa shay baa ku sugan laa caynun ili ra'daysan arkin walaa udunun dhegina samicadaysan maqlin walaa khadara aana ku dhicin calaa qalbi basharin bani aadam qalbigiisna aan ku dhicin oo bani aadam qalbigiisa uusan fakeri karin xataa waxa ku sugan meeshaas fara'aa wuxuu arkay nebigu sala allahu calayh waali wasalam calaa baabiha jannada albaabkeedii buu arkay albaabkii jannada ayuu arkay oo indhihiisu waxay ku dhaceen albaabkii jannada maktuuban xaalo uu yahay mid lagu qoray oo albaabka korkiisa lagu qoray alsadaqatu sadaqadii bicashri amhaaliha mahalkeeda 10 kiis bay ahaatay waalqardu waxa amaahda la yidhaahdaana b18 18 weeye buu yidhi 18 ayay ahaatay mahalkeeda 18 kiisay ahaatay waxaan arkay buu yidhi albaabkii jannada oo ay ku qoran tahay sadaqo qofkii bixiya 10 jeer ayaa loo laabayaayoo ajrigeeda waa loo 10 laabayaa qofkii amaahda waxa la yidhaahda bixiyana waxaa loo laabayaa 18 jeer baa loo laabayaa buu yidhi oo 8 jeer baa loogu darayaa intii qofkii sadaqada bixiyey فإذا وقت مركب وحيد فرأى وحارك على بابها نبي جنة الباب كيدي وارك مكتوبا حاله يمد له قرية الصدقة دي ب10 أمثالها مثل كذا 8 كيس بي أهاتي أيضا كلا 8 كيس بي أهاتي والقرض أماه دينا ب18 سديد 8 بي أهاتي معناه ب18 أمثالها ما لو كذا مثل كذا سديد 8 كيس أهاتي فقال مركب وحيد نبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما بال الغرض أما هذا حال كيد وامحي أفضل مد كفضل بدن حالايتها من صدقة دي بيلي سببتا كينتي أما أو شيء انت لك لقاتل إسوسو علينيو أساق بدل كيسي وحا كيني وحي عادي لإسوسيين وكفضل بدن هذا وامحي بيلي ما بال الغرض أما هذا حال كيد وامحي بيلي أفضل فضل بدن حالايتها من صدقة دي كفضل بدن قال جبريل المركاوي حييني لأن سائلا مدك ويديسنا ياهي يسأله ويديستا وعنده والحال عنده يسقاكتيس شيء يهي بيلي والمستقرض لكن مدك وحاماهنا ياهي لا يستقرض ما أماهضه إلا من حاجة باهي حق يدعون ماها نسكلا وحما أماهضه بيلي قف كان وحويديسنا يوضدك أي وحلا يسياله أصقوا وحيسته إنه المركز وصورة قالوا يلي وحكلاته استكثار إلي جيدو محاولة باتسي إلي جيدو إنه ددك ويديستو وكغاته وصورة قالوا يلي لكن قفك الدين قاطنا يا وقف داني كلفتي بيلوي مركز دين ما قاط قف داني كلفين بيلوي وقف داني كو كلفتي كان وحو يديسنا يا ددك وحيسينا يانا وحو هيبين يانا وحكو صدقين يانا ايضا عن داني كلفين وحلو صدقيا ما سو ددك وحو يديستا صورته قلا لكن الدين مدك قادنا ياهي دنا كو كلفتي معنو اساس او كلا فضل بدن يهين بيلو قفكي مركا دين تاسيا او كسغنا ياهي مركا سدا سو فضل بدن ياهي بيلو لأن الإنسان قال جبريل وحي لأن الإنسان إنسان كي يسأله ويديسنا وعنده والحال عنده سقاكتي شيء يهي والمستقرض مدك أما هنا يان الله يستغرض ما أما هذا بيري إلا من حاجة باهي حق يده إنه كما هذا ما هنا بيري وسبب تكوك اللفتاي باهي تاي فصار وسعدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه في الجنة وكسعدي ما الله وضع جنة الإحدادي فإذا وقت قاسم هو النبي بأنهار برؤية أنهار ورواية الضنبيع الثانية ذاهد ورواية وفي رواية رأى جبريل وكسوى بالعمي رواية صدق أن سعتها وقو رواية هنا غيبة كم إذا يالو وقود حاليا مركب وحيد وإذا وقتك فإذا وقتك اسمه هو النبي بأنهار وبيال وكسوغنيها برؤية أنهار وبيال أركتدود وكسوغنيها وبيال كاسو من لبن عانا كسميسا لمن كون لم يتغير وسندور سومين دعمه ددن كيسوه وأنهار
وبرؤية أنهارنا وكسغنيها وبيال أركتدودي وبيال كاسو من خمر خمرأة خمرة سو لذة مد معانا للشاربين كو عبينا معان وأنهار وبرؤية أنهار وكسغنيها وبيال أركتدودي وبيال كاسو من عسل ملب أهوير ملب كسميسن ملب كوم مصفا لصافية ليبيروي وإذا وقت كاسو فيها جنة الحديدي جنابذ اللؤلؤ جوهرة اللول كاللي يراهدو قبضه ريا خسوغان قبضه اللول كا أيا خسوغان جوهرة اللول كاللي يراهدو قبضه لغا سميهي با خسوغان بيرو وإذا وقت كاسو فيها جنة الحديدي جنابذ اللؤلؤ جوهرة اللول كاللي يراهدو قبضه ريا با خسوغان بيرو وإذا وقت كاس رمانها جنة الرمان كيدو جيد كالرمان كاللي يراهداه كالدلائي wadaamo waa la mid buu yiri dalawyaal ama wadaamo waaweyn waa la mid buu yiri wa fi riwaayatin waxa ku sugnaad wayda waqtigaas ba fiiha jannada dhexdeedii rumaan baa ku sugan geedkii rumaanka la dhigi jiray rumaankaas oo kaanahu sidii isagoo juluudul ibili geela maqaradiisii oo kaleeto ah maqaradii al muqattabati leheriyay geel leheriyay maqaradiis aad moodo heeriya la saaray ومعناه واوينا وحو كقبان مiraha rumaanku waxaad moodaa neefkii geelaha oo waliba heeriyeysan oo haamankiisi iyo rarkiisi iyo wixii oo dhan ay saaran yihiin ayaad moodaa mirtu intay la eg tahay فإذا وقتkaas fiiha jannada dhexdeeda rumaan baa ku sugan rumaankaas oo kaanahu sidii isagoo juluudul ibili geela markaas maqaradiisi lamida juluudi al muqattabati ibilkii aan ku iraahdo ibilka ka sifeeyaan ka hadlayna ibilkii almuqatabati leheriyey sidaa ayaa loo wada muqatabada macnaa allatii bishii calayha iyada korkeeda aqtaabuhaa heeryadeeda ay ku sugan yihiin jamcu qatabin wa huwa araxlu waa reeryadii buu yidhi alladii raxligaasoo yakuunu ahaanaya buu yidhi taxta alaxmaali xamuulka hoostiisa ahaanaya liyaqiya si uu uga dhowro duhuuraha dhabaradeedii min adabri dhaawaca si uu uga dhowro buu yidhi waa kow marka kaanahu waa isagoo juluudul ibili geela markaas maqaradiisii la mida buu yidhi ibishii almuqatabati la heriyeeyey waidaa waqtigaasba bidayrihaa biru'yati dayrihaa jannada shimbiraheedii buu ku sugan yahay nebigu aragtidoodii shimbirihii jannada aragtidoodii buu ku sugan yahay waidaa waqtigaasba بطيرها هو نبي بطيرها برؤية طيرها جنة شمبرها شمبرها أركتي دي بكسوغن ياي كالبخاتي جيري لو كرسلها ها أو كلاتو حالة أي تايبيروي بخاتي وحا ليراهدا وطن كخراسان ليراهدا مقالة خراسان ليراهدا دد كيدو جيل أي دقان شرين وجيل لما كرسلها ليراهدا أيا بخاتي ليراهدا marka kalbakhaatiyi xaalo ay tahay shimbirtaas iyadaahi laba kurislihi faqaala abuu bakar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaah rasuulkiisiiyow innahaa shimbirtaasi la naacimatun tun nimcaysatay weeye waa mid nimcaysatay haddayba geelaas isagaa la eg tahay iyadoo shimbir ah alla ilaah waa tun nimcaysatay buu yidhi innahaa taasi la naacimatun tun nimcaysatay weeye oo jannadii bay inta daaqday intaa kula ekaatay qaala rasuulku markaa wuxuu yidhi akalatuhaa kuwa cunaya ancamu minhaa ayada ka nicmo badan buu yidhi ayada dadka cunaya oo shimbirtaas markaas lagu martiqaadayaa ka nimco badan buu yidhi ayada akalatuhaa kuwa cunaya ancamu minhaa ayada ka nicmo badan wa innii aniguna la arjuu waxaan rajaynayaa an ta'kula inaad cuntid minhaa shimbirtaas xaggeeda inaad wax ka cuntaan rajaynayaa buu yidhi dadka wax ka cunaya inaad ka mid tahay oo ahlu jannada ayaan rajaynayaa buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa ra'aa wuxuu arkay baa layidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam nahra alkawhari webiga kawharka la yidhaahda ayuu arkay waa kowkii isaga ahaayoo la siiyey innaa acطaynaaka alkawhara la yidhi webiga ayuu arkay wa ra'aa wuxuu arkay baa layidhi nahra alkawhari webiga kawharka la yidhaahda ayuu arkay calaa xaafatayhi labadiisa hareerood qibaabu durri jawharta waaweyn luulka waaweyn qubbadihiisii xaalo ay yihiin durrigii macnaha luulkii almujawafi la gudeeyey oo gudaha joofka loo yeelay birwe qubbadihii jawharta la yidhaahdo luulka middeeda waaweyn iyadaa durriga la yidhaahdaaye qubbadihii laga sameeyey oo qubbad caadi ahoo malaasan maahane guda loo sameeyey
ayadoo ahba ayaan ku arkay biru waraa wuxuu arkay baa leeyahay nahar al-kawthari wabiga kawtharka la yiraahdo calaa xaafatayhi labadiisa hareerood xaal ay ku sugan yihiin qibaabo durri luulka midkiisa waaweyn qubadihiisii luulkii al-mujawwafi la gudeeyey birwey waidaa waqtigaas badiinuhu wabiga kawtharka la yiraahdo dhoobadiisu miskun waa miskigoo adfaru udug badan biir wey waa miski aad u udug badan biir dhoobadiisii xataa waidaa waqtigaas badiinuhu dhoobadiisii miskun miski wey miskigaasoo adfaru udug badan biir uma curidad waxaa la bandhigay calayhi nebiga korkiisa sala allahu calayh waali wasalam annaaru naartii baa loo bandhigay faidaa waqtigaasba fiihaa naarta dhexdeedii qadabullaahi subxaanahu wa tacaala aharu qadabillaahi ilaahay caradiisa raadkeedii baa ku sugan wa zajruhu wa aharu zajrihi canaantiisa raadkeedii baa ku sugan biirwey uma curidad waxaa la bandhigay calayhi nebiga korkiisa sala allahu calayh waali wasalam waa kow annaaru naartii baa loo bandhigay biri faidaa waqtigaasba fiihaa naarta dhexdeeda qadabullaahi aharu qadabillaahi ilaahay caradiisa iyo wa zajruhu canaantiisa raadkeedii baa ku sugan biiri wey iyo wa niqmatuhu wa aharu niqmatihi ilaahay aarsigiisa subxaanahu wa tacaala acdaa'diisa uu ka aarsado raadkeedii baa ku sugan biiri wey low durixa haddii la ridi lahaa fiihaa naarta dhexdeedii alxijaaratu dhagxaan haddii lagu ridi lahaa walxadiidu bir haddii lagu ridi lahaa la akaladhaa way cuni laheed baa layidhi wey way cuni laheed low durixa haddii la ridi lahaa fiihaa naarta dhexdeedii alxijaaratu dhagxaan iyo walxadiidu bir la akaladhaa way cuni laheed faidaa waqtigaasba fiihaa naar waa kow faidaa fiihaa soo maahan meeshaas fiihaa soo maahan fiihaa soo sidaas maahan waxbaa naga tirtaba faidaa waqtigaasba fiihaa naarta dhexdeeda qowmun baa ku sugan dheh faidaa waqtigaasba fiihaa naarta dhexdeedii qowmun qoom baa ku sugan qoomkoo ya'kuluuna cunayaan aljiyafa baqtiyaalkiibay cunayaan biin wey waxaa ku jira qoom baqtiyaalka daldalayaanoo cunayaan fa qaala markaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam man haaulaa'i kuwaani waa kuwama yaa jibriilow qaala jibriil markaa wuxuu yidhi haaulaa'i kuwan baqtiga cunayaa huwa aladiina kuwii weeye ya'kuluuna cunayeen luxuuma annaasi dadka hilbahooda cuni jireen kuwii dadka xaman jireenoo dadka hilibkooda cuni jireen weeye kuwana lagu quudinayaa baqtiga naarta lagu quudinaya haaulaa'i kuwana aladiina kuwii weeye ya'kuluuna cunayeen luxuuma annaasi dadka hilbahoodii wa ra'aa nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu arkay maalikan malagii maalig la dhihi jiray buu arkay khaasina annaari naarta qasnajigeeda ahaa buu yidhi wey khaasina annaari naarta qasnajigeeda ahaa fa idaa waqtigaasba huwa isagu rajulun midlu rajulin nin oo kale weeye suuradii rajul buu leeyahay ama suuratu rajulin nin suuradii weeye ninkaasoo caabisan weji tubaya buu yidhi wey nin aad u xanaaqsanoo weji tubaya muuqaalkiis buu leeyahay malagu nin iyo ma ahane laakiin muuqaalkiisuu leeyahay macnuu sidaa weeye fa idaa waqtigaasba huwa isagu rajulun macnaha suuratu rajulin nin muuqaalkii weeye ninkaasoo caabisan weji tubaya ninkoo yucrafu la garanayo alqadabu caradii fii wajhi isaga wejhigiisa laga garanayo fabada'ahu maalig wuxuu ku bilaabay annabiyu nebigu sala allahu calayh waali wasalam bisalaami salaamtii buu ku bilaabay nebiyullaahi moxamed baa salaamtii ku bilaabay waa kow uma uqliqat innaaru naartii baa la xihay baa layidhi naartii ayaa la xihay baa layidhi wey waa kow uma uqliqat innaaru naartii baa la xihay duunahu nebiga sokadiisa sala allahu calayh waali wasalam uma rufica nebiga haddana waxaa loo kor yeelay ilaa sidrati almuntahaa yoolowga geeddiisii xaggeeda loo kor yeelay uma rufica haaniyan mar labaad waxaa loo kor yeelay bian rajaca ilayha waa inuu u noqday baa layidhi bacda an ra'a aljanna markii jannada uu arkay ka gadaal baa layidhi wey waa kow marka uma rufica waxaa loo kor yeelay ilaa sidrati almuntahaa yoolowga geeddiisii xaggeeda loo kor yeelay yoolowga gobtiisii xaggeeda loo kor yeelay faqashiyadhu waxaa dabooshay baa la yidhi saxaabatun daruur ayaa dabooshay khashiyadhu waxaa dabooshay sidratu lmuntaha
صحابة ضرور أيا ضبوشي بالوي واكو ضرور بعد ضبوشي وحال يلي صحابة بعد ضبوشي الواقع وحوي أنا صحابة سيدا نبتا واقعي وحوي أنا صحابة ضرورتي التي ضرورتها رآها رواها أوريا ينكو إرادة ابن أبي حاتم عن أنس وكوري المعراج العاشر ومعراج كي عاشر كهابي الذي معراج كاسو رأى فيه ربه سبحانه وتعالى وأركي بالوين وأما المعراج التاسع معراج كسقالات بير فهو المذكور بقوله ومذكر اللغو حصيبة لير ثم عرج به صلى الله عليه وسلم المستول فكان على المؤلف وحاهاب إلى أن يقدمين هرمري هذا القول قول كان سقابير على فغشيته صحابة نكور مريبين مركا وحير فغشيته وحا ضبوشي صحابة ضرور بعد ضبوشي وفيها نحن وحا كسق نادبا لير سدرة المنتهى من كل لون مضب الأركا يا كسق نابير وفيها سدرة المنتهى نحن كسقنا من كل لون مضب الأركا فتأخر جبريل بعد مري هل كان مركي الله مريو أيا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكدم مري ثم عرج ولا كوري به النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيا لكوريي باليروي كريجا أيا لكوريي لمستوى مكان معناه سرايا الله كوريا لي بالي ثم عرج ولا كوريي ثم عرج ولا كوري به النبي صلى الله عليه وسلم المستوى مكان عالي مكان سريع الله كوريا الذي مكان كو سمعه مغلي فيه مكان كدحدي سبا مكان كو سمعه مغلي فيه مكان كدحدي سي صريف اقلام تسود كودي وكمغلي بروي لمستوى بالله كوريا لي مكان سريع الله كوريا مكان كو سميعه مغلي فيه مكان كدحدي سبا صريف الاقلام قلميالك مقاديرته قريه شنقرتودي وكمغلي ورأى وحو اركي بالي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من ايو اركي رجلكم مغيبا لقريي في نور العرش عرش نور كيسي لو قريي بيروي نين وحو اركي بيري عرشك نور كو قريي بيروي ورأى وحو اركي رجلا نبو اركي رجلكو معناه مثال الرجل بالو جدا نين تصالح رجلكو مغيبا لقريي في نور العرش عرشك نور كيس لو قريي فقال النبي مركا وحو صلى الله عليه وسلم من هذا كان واكما ام ملك ما ملك با كان واكما سدا سيو سؤاشا سوليفت ما ملك با قيل وحا لغو يري لا ما ملك ماهن قال وحير النبي من نبي با قيل وحا لغو يري لا مايا قال مركان نبي وحير من هو واكما بيري هل كان قفك نور كعرشه هريي او ملك يا نبي مدنا انا هيني واكما بيري قيل وحا لغو يري هذا كان الرجل ننوي رجل كان اها في الدنيا هذا كان الرجل مثال رجل نم تصاليه سويه بالي نينكو كان اها في الدنيا دحديسي لسانه يسقع ربكيسي رب مدقين انه يهب بذكر الله سبحانه وتعالى الهي حسكيسا وكقوين يهي وانين ان وليغيس عربكيسو الهي حسكيسا كقللين بالي هذا يجرال انه الهي حسكيسا اسكا ودا هذا كان رجل مثال رجل نم تصاليه وهي رجل كان اها في الدنيا دحديسي لسانه يسقع ربكيسي رب مدقين انه يهي من ذكر الله سبحانه وتعالى الهي حسكيسا وكقوين يهي بروي معناه متحرك دائما بذكر الله بكل رقاقيا وهذه مزية عظيمة وديراد وين بيري لكن لا تقتضي الأفضلية على الأنبياء والملائكة لكن الملائكة أنبياء كفضل بدنها لقى قادر ما يبيرون نين كاون ونين خير بدن لكن أنبياء كفضل بدنها أما بقارا حتى أمرنا ولا لهين واكو وقلبه يسقى قلبه سينا معلق مثل وحيره وياي بيري رجل قال لسانه يسقى عربكيسي رب مدقين ويا بذكر الله سبحانه وتعالى إليه حسكيسا وكقوين ياي وقلبه يسقى قلبه سينا معلق مثل وحيره ويا بالمساجد مساجد الوحيري واكو ولم يتصبب أن عاين لوالديه يسقى لمدي لشيء قد ولقي أن عاين بالولي أن ولقي عاين لمدي يسقى لشيء ولم يتصبب أن عاين لوالديه لمدي يسقى شيء قد ولقي أن عاين معناه لم يفعل ما سمين
maa yaqtadii wax keenaya sabahumaa caayitaankooda wixii keenayo min sabi waaliday axadin qof labadiis waalid inuu caayo ah aw hayra daalika ama wax kaloo labadiis waalid lagu caayo mimaa laa yanbaqii ficluhu sharcan wixii aysan falitaankoodu habboonayn weligii muusan samayn waxa labadiisii waalid cay u soo jeeda ma uusan samayn macnuhu saasaa loo wada macaayinta walam yatasabab ma uusan caayin baa layidhi waalidayhi labadii asagana shaqada weligiis fara'aa wuxuu arkay baa layidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam rabbahu rabbigii buu arkay subxaanahu wa tacaala rabbigii buu arkay laa fii jihatin walaa biinxisaarin munazahan can sifaati alxawaadisi laa biqalbihi faqad bal wa bicaynayhi cala asaxiixi almashhuuri wa huwa madhabu bnu cabbaasin laa fii jihatin jiho gooniyahoo ilaah subxaanahu wa tacaala uu asaga ka xigay nebiga oo ama kor ama hoos ama midig ama bidix ama horay ama gadaalah oo jiha u gooniyahoo markaas uu ka xigay kuma uusan arkin buu yidhi walaa biinxisaarin koomid uu sida makhluuqaadku u kooban yihiin oo meel ay ku kooban yihiinna uguma uusan arkin munasahan mid laga hufay xaalo uu yahay can sifaati alxawaadisi makhluuqaadka sifaadkoodii xaal mid laga hufay xaalo uu yahay buu arkay buu yidhi laa biqalbihi qalbigiisa faqad oo kaliya kama uusan arkin bal wa bicaynayhi labadiisa indhoodna wuu ka arkay buu yidhi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahi wuu ku arkay buu yidhi cala saxiixi haddaan ku soconno buu yidhi saxiixi korkiisa saxiixi almashhuuri lacaan bixiyey wa huwa saxiixaas mashhuurkaahina madhabu bnu cabbaasin xabru lumma cabdullaahi bni cabbaas madhabkii uu ku tegay weeye radia allahu tacaala canhu waa kow fara'aa rabbahu buu arkay subxaanahu wa tacaala faqara annabiyu nebigu wuu dhacay sala allahu calayh waali wasalam wuu dhacay saajidan mid sujuudaya xaalo uu yahay wa kallamahu waxaa la hadlay rabbuhu rabbigiis baa la hadlay cinda daalika sujuuddaas agteedii faqaala wuxuu ku yidhi lahu nebiga rabbi wuxuu ku yidhi yaa muxamedu muxamedow qaala nebigu markaa wuxuu yidhi labayka ku ajiiba yaa rabbi ilaahayow ku ajiibay qaala rabbi wuxuu ku yidhi sal weydiiso waxaad rabtid weydiiso faqaala nebigu markaa wuxuu yidhi innaka ittakhadta ibraahiima ilaahayow ibraahim waxaad ka dhigatay khaliilan waday baad ka dhigatay nebiyullaahi ibraahim sifada khullada la yidhaahdaad siisay oo ah min sifaa'i mawadda galgacalka iyo jeclaanta saafinimadeedii baad siisay baa layidhi wey innaka ittakhadta ibraahiima ibraahim waxaad ka dhigatay khaliil baad ka dhigatay wa acdaytahu waxaadna siisay mulkan cadiiman mulki weyn baad siisay baa layidhi ibraahim marka waxaa la yidhi nebiyullaahi ibraahim baa mulki weyn la siiyey qaala ibnu daxiya ninka la yidhahda ibnu daxiya wuxuu yidhi baa la yidhi laa yuchadu lama ogaanin buu yidhi liibraahiima ibraahim mulkun curfiyun mulki markaas curfi ahoo la isla yaqaano nebi ibraahim u dureersaday lama sheegin falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa baa layidhi qahruhu qahridiisii weeye licudamaa'i ilmuluuki boqorrada kuwoodii waaweynaa uu markaas mucjisaad iyo xujo uu ku qahray weeye wanaahika binamruudi namruud baaba kugu filan baa layidhi waqad qaharahu allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu u qahray bikhaliilihi buu qahray nebiyullaahi ibraahim wa qahru lmeliki boqorkii la qahridiisii boqorkii alcadiimi weynaana mulkun cadiimun isagaa mulki weyn ah buu yidhi falqaahiru ka wax qahray baa acdamu wuxuu ka wen yahay min almaqhuuri ka la qahray baa layidhi wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagala baa layidhi ana almuraada ujeeddada bilidaafati looga muraadayaa ilaa duriyatihi awlaaddiisii inay tahay oo ilaahay wuxuu yidhi faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikmata wa aataynaahum mulkan cadiiman oo marka awlaaddiisi in la sheegayo na waa suurtagal baa layidhi markaa waa kow marka wa acdaytahu waxaad siisay mulkan baad siisay boqortooyo mulkigoo cadiiman weyn wa kallamta muusena waad la kalaamtay baa layidhi takliiman kalaamitaan wa acdayta waxaad siisay daawuudna nebi daawuudna mulki baad siisay mulkigoo cadiiman weyn wa alanta waxaad u jilcisay lahu daawuud alxadiida birtii baad u jilcisay wa sakharta waxaad u laylisay lahu daawuud aljibaala buurihii baad u laylisay wa acdayta sulaymaanna waxaad siisay mulkan boqortooye ayaad siisay mulkigoo cadiimin weyn wa sakharta waxaad u laylisay ood u sakhirtay baa layidhi lahu sulaymaan ibni daawuud aljinna jinnigii baad u sakhirtay waalinsa insigiina waad u sakhirtay waashayaadiina shayaadiintana waad u sakhirtay baa layidhi
sakharta wa sakharta waxaad u sakhirtay baa layidhi lahu isaga alriyaaxa dabaylihii baad u sakhirtay wa acdaytahu waxaadna siisay baa layidhi mulkan boqortooyo ayaad siisay mulkigoo laa yanbaqii aan habboonayn liaxadin qof aan ku habboonayn axadkoo min bacdihi isaga ka dambeeya axad ka dambeeya mulki aan la siinayna waad siisay baa layidhi acdaytahu waxaad siisay mulkan boqortooyo mulkigoo laa yanbaqii aan habboonayn liaxadin qof axadkoo min bacdihi isaga ka dambeeya wacallamta ciisa nebiyullaahi ciisena waxaad bartaa layidhi altawraata kitaabka towraad la yidhaahdaad bartay waalinjiila injiil baad bartay wajacaltahu waxaad ka yeeshay nebi ciise yubri'u inuu daaweynayo alakmaha indhala-aanta dhalashada ah inuu daaweynayo iyo walabrasa baraska inuu daaweynayo wayuxyii uuna noolaynayo almowtaa kuwa dhintay biidnika adiga idankaaga uu ku noolaynaya baa layidhi wa acadtahu waxaad ka magangelisay nebiyullaahi ciise bni maryama wa ummahu hooyadiina aad ka magangelisay min ashaydaani shaydaankii alrajiimi naxariista laga fogeeyaad ka magangelisay falam yakun uma sugnaanin lishaydaani shaydaankii calayhimaa ciise iyo hooyadii korkoodii sabiilun wadda uguma sugnaanin buu yidhi wey shaydaan inuu lumiyo oo wax ka markaas waswaasiyo kuma guulaysan karo falam yakun uma sugnaanin lishaydaani shaydaankii calayhimaa korkoodii sabiilun wadda uguma sugnaanin faqaala allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay markaas wuxuu ku yidhi nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayh waali wasalam qad ittakhadtuka adiga waxaan kaa dhigtay nebiyullaahi muxamedow xabiiban xabiib baan kaa dhigtay kulla jecel yahay baan kaa dhigtay ay maxbuuban wahada yadullu wuxuu tusaalaynayaa calaa anna maqaama almaxaba maqaamka maxabadu aclaa min maqaami alkhulla maqaamka khaliilnimada inuu ka sarreeyuu tusaalaynayaa baa layidhi qad ittakhadtuka waxaan kaa dhigtay baa layidhi xabiiban xabiib baan kaa dhigtay qaala raawigu wuxuu yidhi wa huwa kaasi maktuubun mid lagu dhigu ahaa fi tawraati towreed baa lagu dhigay oo macnaha ka dhigashada ilaahay nebiga uu ka dhigtay xabiibka uu ka dhigtay towreed xataa way ku tiilay buu yidhi wa huwa kaasi buu yidhi maktuubun ku lagu dhigay weeye fi tawraati kitaabkii towreed ahaa xabiibullaahi baa lagu dhigay ilaahay xabiibkiisii baa lagu dhigay buu yidhi wa arsaltuka waanan ku diray buu ilaah ku yidhi linnaasi dadka xaggoodii linnaasi dadkii baan kuu diray kaafatan xaalo ay yihiin guud ahaan bashiiran mid bishaaraynaya xaalo aad tahay baan ku diray wa nadiiran mid digaya xaalo aad tahay baan ku diray wa sharaxtu waxaan waasiciye laka adiga sadraka laabtaadii baan kuu waasiciyey wa wadactu waxaan dejiyey canka adiga xaggaaga wisraka culayskaagii baan kaa dejiyey baa layidhi waa kow wa rafactu waxaan kor yeela laka adiga dikraka xuskaagii baan kor yeelay laa udkaru ma la i xusayo ilaa wadukirta waa lagu xusayaa macii aniga macaygii anigaa la ila kaa xusayaa macnaha madkuur fa huwa sala allahu calayh waali wasalam madkuurun macahu ilaahay maciisaa la xusayaa buu yidhi tacaala shaanigu sareeya fi laadaani aadaanka iyo waliqaamati aqimitaanka iyo watashawdi ataxiyaadka iyo meel walbaa lagu xusayaa buu yidhi warafactu waxaan kor yeela laka adiga dikraka xuskaagii laa udkaru la i xusimaya ilaa wadukirta waa lagu xusaya macii aniga macayga wajacaltu waxaan yeelay ummataka adiga ummadaadii khayra ummatin ummad midii ugu khayr badneed ummadda ukhrijada la soo saara linnaasi dadka loo soo saaray wajacaltu ummataka ummadaada waxaan ka dhigay ummatan ummad baan ka dhigay ummadda wasadan cadaalad ah wajacaltu waxaan ka dhigay ummataka adiga ummadaadii hum lwaluuna kuwa horeeya kuwa ayaga ugu horeeya oo macnaha jannada gelitaankeeda dadka ugu horeeya wahum ayakuna alaakhiruuna kuwii dembeeyey weeyo oo xagga wujuudka iyo soo bixinta ummada lasoo bixiyo ayakaa markaas ugu dembeeyey buyidhi ummad adduunka lagu camiro ayakaa ugu dembeeyey wajacaltu waxaan ka dhigay ummataka ummadaadii hum ayakuba alawaluuna kuwii horreeyaan ka dhigay wa hum alaakhiruuna walxaal hum ayakuna alaakhiruuna kuwii dembeeyo oo xagga wujuudka ku dembeeyey ay yihiinan awaliinta ka dhigay macnuu sidaana la yidhahdana waa la sheegay wajacaltu waxaan ka dhigay ummataka adiga ummadaadii laa tajuusu inaysan bannaanayn lahum iyaka khudbatun meeshaa kan yararkaa waxbuu ka hadlayaan u malaynayaa la iska soco wajacaltu waxaan ka dhigay buu yidhi ummataka adiga ummadaadii laa tajuusu inaysan bannaanayn lahum iyaka khudba inaysan u bannaanayn xataa yashhaduu ilaa ay qiraan annaka adigu cabdii aniga addoonkaygii inaad taha wa rasuulii midkaan soo diray inay tahay khudbada dhexdeeda ay ku qiraan wajacaltu waxaan ka dhiga min ummatika adiga ummadaadii waxaan ka mid dhiga aqwaaman qolooyin baan ummadaadii ka mid dhigay qolooyinkaasoo quluubuhum ayaka quluubtoodu anaajiiluhum kutubtoodii ay tahay oo quluubtooda
ku xafidsan cilmigii iyo diinkii iyo wixii oo dhan ku xafidsan buu yidhi waa kow wajacaltu waxaan markaas wuxuu yidhi waxaan ka mid dhigay buu min ummatika adiga ummadaadii aqwaaman qolooyin buu yidhi aqwaamtaasoo quluubuhum quluubtoodii anaajiiluhum kutubtoodii ay tahay wajacaltuka waxaan kaa dhigay awala annebiyiina nebiyaalka kii ugu horreeyey khalqan xagga abuurista wa aakhirahum ka ugu dembeeya bicsan xagga soo bixinta oo nuurka nebiga ayaa ugu horreeyey sidii ay dhihi jireen xadiidkaas ku soo aroorayba wuxuu doona ha ahaadee wajacaltuka waxaan kaa dhigay buu yidhi awala annebiyiina nebiyaalka midkii ugu horreeyey khalqan xagga abuurista wa aakhirahum ka ugu dembeeya ayaan kaa dhigay bacsan soo bixintana ummadaha loo soo bixiyana kii ugu dembeeyaan kaa dhigay buu wa awaluhum ka ugu horreeyaan kaa dhigay buu yidhi awalkaasoo yuqdaa la xugminaya lahu isaga wax loo xugminayo yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinkiisa waxa loo xugminayo oo asaga markaas ummaddiisa la xugminayo filxisaabi xisaabka iyo wasuxufi warqadihii iyo walmiisaani miisaanka iyo wasiraadi iyo wadukhuuli iljannati lianna sha'na alcadiimi cadiimka sha'nigiisa waxaa ka mida an yuqadama in la hormariyo fii umuurihi calaa hayrihi buu yidhi marka wa awaluhum ka ugu horreeyaan kaa dhigay buu yidhi awalkoo yuqdaa loo xugminayo lahu isaga yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinkiisii wa acdaytuka waxaan ku siiyey sabcan toddobaan ku siiya toddobadoo min almahaani aayadihii soo noqnoqonayay ka mid ah buu yidhi waa suuraddaa la yidhahdo asabcu almahaani suuratu alfaatixa wa acdaytuka waxaan ku siiyey sabcan toddobo sabcadoo min almahaani aayadihii soo noqnoqonayo ragco walba ku soo noqnoqonaya ka mid ah waa kow sabculmahaanigoo la mucdiyaha aan la siinin buu yidhi nebiya nebi aan la siinin nebigoo qablaka adiga kaa horreeya